بسم الله الرحمن الرحيم. عثمان بن عفان الله رالي كان نقضي الضوميسي الضوم كميد هو يا مالين وعود العقد انقاض ابو ذر الغفاري وقي هدو العقد ابو ذر هدو العقد كان قاتنا حربات هي وكيل حر واكو حري ابو ذر مركا مقاله مدينه دبدد ودغنا ريبتن بين ليدا oo Uthman bin Affan baa ku halka u guurado waayo nin zaahid abu ahaa qarnigii nabiga moodaa inuu joogay isagu dadka taabiciinta diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyada la yimaadeen oo dhan uu nafinaya isagu dharkii nabi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa wali ariishkii nabi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii ahdigii nabiga la cunayna wali uu cunay isagu Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu marka ninkii adoonka lacagtii uu la soo orday meesha ma soo dhiganin ba lacag diidi kara soo salaama inta man ba lacag diiday waska jecel oo yimiday oo salaamay wuxuu amirkii muuminiinta Uthman baa salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal waran isaga ka waran daar al-khilaafa ka waran masjidii nabiga ka waran muslimiinta xalqooga ka waran markuu uga waramay ayuu yiri lacagtana uu soo dhiibo wuxuu yiri Abu Dharr u geel lacagtaas markaas uu maxaan ka dhigaa wuxuu haw kaalmaysta adduunyadiisa markaas uu u celiyo waxaad ka tiraahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay cidaasi ka dhabu inaga maanta lacag nin diidi kara uu yar yahay maanta zamanka waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxa ka dhaadhacsanay may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahideeda ilaahay baa iga daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsaneed iyaga laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istighfaar baan haystaa quraan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduunyo ma markaasuu ninkii yaabay war iska qaado bay u celi markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yiri amiirka wuxuu igu yiri hadduu Abu Dharr lacagta ka qaato xor baa tahay buu igu yiri ar walaal adoonnimada ha ka baxee xoreeyo lacagtan iga qaado buu ka yiri markaasuu ka qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu hor iga qaaday oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi Abu Dharr dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonaya marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu xor ninkii lacagta isagoo wada Usmaan u keenay wuxuu waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta ka qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunyo u jeeda maaha Abu Dharr al-Ghifari lacagta daliil mayno ha shaqayso qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacanta ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso anta adduunyadii iyada maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyagu adduunyada iyaga fuushana innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tuga kari laanahay diintii baa ka baran kari laanahay diinteenni waqti ku bixiyay bay culimadu leeyihiin waqti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tagin